Soo dhawaada asxaabey, maanta waxaa idin wadaa filim Mareykan action thriller ah kaasoo soo baxay sanadii 2008. Intaan u gudagelin filimka, fadlan channel subscribe saar. Mahadsanid. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa Ryan Mills oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada CIA. Ryan wuxuu dhalay gabar lagu magacaabo Kim, taasoo la nool xaaskiisii hore lagu magacaabo Lenore iyo ninkeeda Stuart. Ryan oo sanado badan ka maqnaa gabadhiisa ayaa rabay inuu xiriir wanaagsan la sameeyo gabadhiisa. Wuxuu u keenay qalabka lagu heeso maalinta dhalashadeeda, balse Stuart oo ah hooyada ninkeeda ayaa wuxuu u keenay faras aad ayayna ugu faraxday. Ryan kuma farxin arrintan. Habeenkii Ryan wuxuu casheer ku casuumay saaxiibadiisii hore ee CIA-da. Sam oo ah Ryan saaxiibkiis ayaa ka codsaday inuu shaqo u raaco, shaqadaas oo ah bodyguardnimo lagu ilaalinayo fanaanad. Wuxuuna u sheegay inuu u baahan yahay. Ryan wuu ka oggolaaday. Subaxii, Ryan wuxuu fanaanadii weydiiyey talo ah sidee ayay ku noqotay fanaanad caan ah. Wuxuuna u sheegay in gabadhiisa ay jeceshahay inay fanaan noqoto. Markii uu showga dhammaaday, taageerayaashii ayaa soo weeraray fanaanadii, balse Ryan ayaa badbaadiyey fanaanadii. Iyadoo u mahadcelinaysa ayaa siisay nambarkeeda, una sheegtay inay gabadhiisa caawin doonto. Maalintii xigtay, Ryan ayaa la kulmay gabadhiisii hooyadeed. Kim ayaa waxay ka codsatay aabaheed inuu u fasaxo inay saaxiibteed u raacdo magaalada Paris ee dalka Faransa, balse wuu ka diiday, wayna ka xumaatay Kim midaas. Subaxii xigtay, Ryan ayaa imaaday guriga gabadhiisa Kim, wuxuuna siiyey warqadii fasaxa oo ay u baahneyd, balse wuxuu ka codsaday inay soo wacdo mar walba ayna is-ilaaliso. Markii ay airport-ka imaadeen, Ryan wuxuu ogaaday in gabadhiis ay been u sheegtay ayna u socoto dalal badan oo ku yaala Yurub, halkii ay kaliya Paris ka aadi lahayd. Markii Kim iyo saaxiibteed ay imaadeen Paris, waxay la kulmeen Peter oo ka codsaday inay isla raacaan taksiga maadaama uu qaali yahay. Markuu guriga geeyey, Peter ayaa telefoon wuxuu ku wacay saaxiibadiisa, wuxuuna u sheegay meesha ay degan yihiin Kim iyo saaxiibteed Amanda. Ryan ayaa Kim soo wacay dhowr jeer, balse telefoonka kama aysan qaban. Ugu dambeyn, Kim ayaa qabatay moobilka. Intii lagu jiray wicitaanka, Kim ayaa aragtay niman soo galaya aqalka, kuwaasoo afduubtay Amanda. Brian ayaa isla markii duubtay sheekada, wuxuuna u sheegay Kim inay ku dhuumato sariirta hoosteeda. Wuxuuna u sheegay inay ku qayliso tilmaamaha afduubayaasha. Markii Kim laga soo saaray sariirta hoosteeda, waxay ku qaylisay tilmaamtii afduubayaashii. Mid ka mid ah afduubayaashii ayaa moobilka soo qabtay. Markii uu maqlay neeftuurka ninka, ayuu wuxuu ku yidhi, ma aqaan qofka aad tahay. Haddii aad gabadheeda sii dayso, idinma soo dabagelayo, balse haddii aad gabadheeda wadataan, waa idin soo dabageli doonaa, waana idin dili doonaa. Ninkii ayaa wuxuu ugu jawaabay nasiib wacan, moobilka ayuuna ku jaray. Brian isla markii wuxuu aaday guriga Lenore, wuxuuna Stuart ka codsaday inuu tikid u soo jaro si uu u aado Paris. Ayaa wacay saaxiibkii Sam, wuxuuna u sheegay tilmaamihii ay Kim ku qaylisay. Codkii uu duubayna wuu u diray. Sam ayaa wuxuu soo ogaaday in nimanka ay ka soo jeedaan dalka Albania. Ninka telefoonka kula hadlayna uu yahay madax mooryaanta, kaasoo lagu magacaabo Marco. Sidoo kale wuxuu u sheegay in haddii gabadhiisa uu muddo 96 saac gudahood ku soo heli waayo, in uusan dib dambe u arki doonin. Ryan ayaa Paris u duulay, wuxuuna tagay gurigii lagu afduubtay gabadhiisa. Wuxuu dib u sawirtay wixii meesha ka dhacay, wuxuu dhulka ka soo qaaday moobilkii Kim oo jabay. Kaadhka ayuu ka bixiyey, wuxuuna ka arkay sawirkii Peter. Wuxuu yimid garoonka diyaaradaha, wuxuu meesha ka soo ceyrsaday Peter. Ryan wuxuu isku dayay inuu qabto, balse Brian gaari ayaa dilay. Ryan wuxuu raadiyey nin ay isla soo shaqayn jireen oo hadda ka shaqeeya wasaaradda, kaasoo lagu magacaabo Cloud. Cloud ayaa Ryan uga digay inuusan faragashan mooryaanta, wuxuuna u keenay tarjumaa Albanian English ah. Ryan ayaa soo dabagalay tuugadii, wuxuuna foodeeyey gabar u shaqaysa. Ugu dambeyn waxaa imaaday mid ka mid ah mooryaantii Albaniyaanta, kaasoo buriyey Ryan. Ryan ayaa wuxuu ninkii ku dhejiyey sameecadaas oo la iska dhagaysan karo. Ryan ayaa ku soo noqday gaariga, wuxuuna dhageystay mooryaantii. Ugu dambeyn wuxuu ogaaday inuu jiro guri dhismo ka socdo, kaasoo ay joogaan mooryaanta. Meeshii ayuu tegay, wuxuuna ka raadiyey Kim.
wuu waayay balse wuxuu arkay gabar wadata jaakadda Kim. Gabadhii ayuu soo badbaadiyey wuuna daaweeyey. Subaxii dambe, Cloud ayaa wuxuu Ryan ka codsaday inuu dalka isaga tago maadaama uu dhibaatooyin badan sababay. Mid ka mid ah shaqaalihiisa ayuu ku amray inuu soo ogaado meesha uu degan yahay Ryan, balse Ryan waa nin aqli badan oo uu ka fakaday. Waxaa soo kacday gabadhii uu soo badbaadiyey oo gaariga saarnayd. Ryan wuu su'aalay gabadhii wuxuuna weydiiyey meeshii ay ka keentay jaakadda. Wuu ogaaday meel kale ay tuugada joogaan. Isagoo isticmaalaya kaadhka uu ka soo xaday Cloud ayuu wuxuu aaday meeshii, wuxuuna soo dhaafay ilaaladii asigoo iska dhigaya askari. Ryan ayaa kulan la yeeshay mooryaantii. Waa hadalkaas oo isku beddelay dagaal ay ku dhinteen dhowr mooryaan. Marco ayaa wuxuu u sheegay Ryan in gabadha aan guur soo marin ay qiimo badan tahay lana siisto lacag badan. Mark ayaa wuxuu u sheegay Ryan nimankii uu ka iibiyey gabadhiisa. Mark ayaa dhintay oo waxaa koronto ku dilay Ryan. Wuxuu soo raadiyey ninkii gatay gabadhiisa oo la dhaho St. Clair. Asigoo iska dhigaya booliis ayuu imaaday xafladii ay ka dhaceysay kala iibsiga. Wuxuu ka codsaday askariga inuu galo qolka, balse askarigii ayaa diiday. Ryan wuxuu dilay askarigii. Ryan ayaa markaan iska dhigay waiter ama kawiyeeri, wuxuuna soo galay mid ka mid ah qolalkii uu ku jiray. Mid ka mid ah nimanka iibsada gabdhaha. Waxaa la soo bandhigay Ryan gabadhiisa. Ryan ayaa wuxuu ku qasbay ninkii inuu gato gabadhiisa. Ryan isla qolka ka soo bax, madax ayaa bir looga dhuftay oo uu miir daboolmay. St. Clair ayaa ciidankiisii ku amray inay dilaan Ryan. Markii uu Clair soo baxay wuxuu maqlay dhowr xabadood. Kadib waxaa qolka ka soo baxay Ryan oo dhaawacay Clair. Clair ayaa Ryan u sheegay in gabadhiisa la sii saaray doon. Ryan ayaa toogtay Clair wuxuuna u soo cararay doontii. Markii uu doonta soo galay, Oli oo ah ninka soo iibsaday gabadhiisa ayaa isku day inuu la hadlo Ryan, balse Ryan ayaa toogtay ninkii. Ryan ayaa arkay gabadhiisa. Kim ayaa si naxariis leh hab u siisay aabaheeda, iyadoo dhahayso dartay ayaa u imaatay. Maalintii ku xigtay waxay ku soo noqdeen dalka Mareykanka. Filimka wuxuu ku soo dhamaanayaa Kim iyo Ray oo la kulmaya fanaanadii filimka bilowgiisa ka soo muuqatay, taasoo caawinaysa Kim oo ilaa yaraanteeda jecleed inay fanaan noqoto. Aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii uu kaanfacay muuqaalka, fadlan muuqaalka like saar, channelkana subscribe dheh. Kulanti dambe oo xiiso leh.